bulshadani maanta warsheeq ay dana kale u soo gaartay laakiin waxa madaxooda ku batay oo ka buuxsamay danihii shacabka iyo maxaa la yiraahdaa dhalaanka inay ku baaba'ayaan oo ay u xayran yihiin isbitaalka oo xiran dartiis arintaas ayagoo ka duulaya isla markaana hore loogu soo gudbin ayaga dhaqanka aysan arintaas loo soo gudbin maanta waxay isla garteen in arintaas la fiirsan karin in la dhaxgalo waxayna go'aansadeen sida odayaasheena dhaqanka Xaaji Axmed iyo Shiin ay sheegeen in labada guddi ee isku haysataba furihii laga qaado isla markaasna sida ugu fudud ugu dhaqsiyaha badan ugu quruxda badan la isu geeyo dadka ay arintaas quseysay arintaasna ayadoo dhameystiran oo turdureel aan lahayn oo la soo turxaan bixiyay si nabada isbitaalka loogu furo bulshada si baahida loogu qabay oo u shaqeynayay bulshada oo ay hesho waxaan rajaynaynaa dadka meesha fadhiyada yar ma aha intaan waxay u kacdo oo Ilaahay aqbal way rumoobayaan marka waxaan rabnaa si dar Allah ah isbitaalkan baahiya loo qabaa daawo dhacaysa taalo intaas ka badan lama sii fiirsan karo sida ay sheegeen waa ku garab taaganahay odayaasheena dhaqanka waxaan rajaynaynaa qof kasta oo ay qusayso in loo yeero qofkii loo arko inuu caqabad yahana laga tashto qof iyo dad way kala badiyeen talada dadkana iska leh qoftii loo arko in ayadu caqabad ku tahay insha Allah taala waa go'aan la gaari doona arintaas oo dhameystiran oo tiftiran insha Allah taala deegaanka cabashada qabo ee dadka rafaadka ka soo gaaray dadka umul raacday dadka dhigbaxa u dhintay waa ka raali gelinaynaa sababta oo ah dadka ehelka u ahay ayaa ka fadhiistay oo u istaagi waayay oo arintaas u qumi waayay laga raba inay soo qumaan insha Allah laakiin maanta ay soo gaartay waxaan rajaynayaa in nafaato waana maasantiin boqolkiiba ku salaameynaa wada shaqeyn wacan muddaas kooban waxaan rajaynayaa in isbitaalka waana maasantiin wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh